هذا arrintu sida ay tahayna waa sida uu idin sheegay haddaan anu mid yar ku noqdo waxa weey dili dhabe maanta maamul cusub baa loo sameeyay maamulka cusub ee waxa loo sameeyay waxa weey waxa la yiri dili dhabe Oromo iyo Soomaali ayaa priority laho Oromo iyo Soomaali baa xukumaysa Oromo iyo Soomaali baa xukumaysa gudoomiyadnimadii waxa la siiyay Oromo gudoomiye ku-xigeenkiina waxa la siiyay ciise markii go'aanka la soo gaaray labada qole ee xisaabtamaysay ee gorgortamaysay labada un bay ahaayeen la nooma dhaxeeyay dawladda ka dhaadhiciyay waana tii uu la yimid ra'iisul wasaaruhu Malla Sanaawi tii uu la yimid ee ka soo baxday kolkii uu ugaas weydiiyay su'aashii walada gurgura waxay taagan tahay kolka inaan ismuujino iyo inay sida labada reer ee labada dhinac inaga kala xiga ay sheegan inay noqoto halgankii inaan ismuujino ayay hadda maanta taagan tahay oo aan ku jirnaa hadalkiisii iyo ololihiisii iyo odayaal baan dilaynaa warqadaha la qoray waxa la wixii dukumiintis cadeynayay walada gurgure iyo gurgure ayaa dib loo doonay ilaa taariikhda intii ay soo jirtay wax badan baa la helay wax badanna waa dhiman yihiin wixii la helay iyo qoraalo la sameeyay iyo odayaal baa hadda maanta ayaa tagi doona lacag baa dadka waxoogay laga ururiyay qof iyo itaalkii 5 oday baa tagi doona maxamedna uu ka horeeyaa maxamed yuusufna uu ka horeeyaa isaga la doonaya kolka inuu wadigo u noqdo ta ugu horeysa waxa weey bal in la ismuujiyo oo la beeniyo ma jirtaan baa la yiri ta labaad 7 bilood ka bacdi doorasho ka dhacaysa dili dhaba iyo hareeraheeda maamulka la soo magacaabayaana ma jiri doono maamul la soo doortay oo dadka dhulka degani ay soo doorteen baa maamuli doona cidii doorashada ku guuleysata ayuun baana noqon doonta cid dil dhaba xukumi doonta loona aqoonsan doona inay lahaan doonaan marka ololahaas doorashada muhiimad aad iyo aad muhiimad gaar ah u leh oo ay ku xiran tahay dhulka iyo lahaanshihiisa iyo jiritaankeennii ay ku xiran yihiin way soo socotaa kolka waxaan leeyahay taana waa in loo diyaar garoobaa maanta marxaladii hore waa laga soo guuray marxalad cusub oo ismuujina ayaa inagu soo socota bal wax waliba hay noo joogayna sidaynu u dhaafi lahayn marxaladda soo socota ee kala dambaysa taa in dawladdii loo tago oo la isku sheego oo la muujiyo oo wixii lala soo baxo iyo doorashada ka dambaysa oo in la abaabul la galo oo dadkii doorasho la galo oo aad ismuujiso inaad aqlabiyad tahay oo dadkaagu ay soo baxaan oo doorashadii ku khasaaray inaan noqon labada marxaladood adag bay nagu soo socda labadaaba waxa la doonayaa inaad ka qayb qaadataan waana saal inoo sheegay oo Cabdi Wahaab idin sheegay waxaan idinku ku gunaanadayaa nimayo fadhiga laga kaco Canada Mareykanka Ingiriiska meel kasta oo la joogo hal la isgaarsiiyo fariinta hal la isgaarsiiyo hal lagu tala galo sidii maanta aan uga bixi lahayn marxaladda adag ee nagu soo socota wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh